ma ogtahay walaasheeda muslimadda ahay in aan haysano jaanis aad iyo aad u weyn haddana aanan ka faa'iidaysanaynin. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haweeneyda haddii ay dukato shanteeda salaad ay soonto bisha ramadaan farjigeedana xumaanta ay ka ilaaliso zawjkeedana adeecdo maalinta qiyaamo waxaa loo leeyahay adkhilii min ayi abwaabil jannati shi't albaab alaalo albaabkaad jeceshahay ka gal ayaa loo leeyahay jannada. allahu akbar. shanta salaadood waan dukan naqaanaa weliba sunnooyin ayaan ku darnaa bisha ramadaanna waan soomnaa weliba sunnooyin ayaan raacsiinaa farjigeennana xumaanta iyo zinada waan ka ilaalinaa runta marka laga hadlo. laakiin markii lagu yiraahdo gabariyay zawjkaaga adeec oo ka dambeey oo hadalkiisa maqal waxay ku leedahay adoon ma u ahay. allahu akbar. adoon uma jeed laakiin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa sabca samaawaad ka soo amray salaada asiga kugu waajib yeelay waad samaysay soonka asiga kugu waajib yeelay waad soontay farjigaaga xumaanta ka ilaali ayuu ku yiri waad ogolaatay maxaad ku diiday ii sheeg zawjkaaga inaad adeecdo maxaad qaybna u qaadanaysaa qaybna uga tagaysaa. ogow nabi maxamed wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam yiri waxaan ku dhaartay allihii nafteeda gacantiisa ay ku jirtay haweeneyda ma gudanayso xaq rabbigeed dhageyso haweeneyda ma gudanayso xaq rabbigeed ilaa ay gudato xaq zawjkeeda. allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo kuwa zawjaashooda xaqooda ka soo baxo diintana hana fahansiiyo xaqana hanagu sugo. waxaan u soo duubay fiidiyogan ma ahan inaan idinka cilmi badanahay laakiin wallahi qofka idinkugu liita qofka ka sii liita ayaan ahay. waxa ay qasbay waxay tahay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wassalaam ee ahaa balliquu cannii walow aaya dadka diinta hala gaarsiiyo hal aayad ba ha ahaatee. in wanaaga la isfaro xumaantana la iska reebo waxay ka mid tahay sifaatul mu'miniin. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo min alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kuwa markay warka dhageystaan ka qaata kiisa wanaagsan. aad iyo aad ayaan idin jeclaa walaalahayga muslimiinta dhamaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.